السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن اشتفتم أنيقو أمنا محمد عبدي دمان ولا لها أول نلجوغي سبسكرايب كنو ساري لايك كنو ساري aad baan uga mahadcelinayaa walaalaha cusub oo sidoo kale ayagana nagu soo biiray subscribe-ka noo saaray like-ga noo saaray sidoo kale aad baan uga mahadinayaa waxaan rajeynayaa inaan dhammaanteen muddo dheer wada joogno isna booqano hadduu ilaahay idmo walaalayaal waqtigii winterka la soo galay wadamadan Yurub iyo Afrikada qaarkeed xataa waqtigii roobabka ama qaboobaha in la soo galay qaboobo lama soo galin laakiin roobabka laga yaabaa mar walbaba waxa dhacda markii xilliyadu isbedelaan in hargab iyo uu yimaado maxaa la dhahaa grippal infect waxay dhahaan markaa waxaa u baahanaysaa hadda caruur leedahay runtii waxyaalo badan oo kaalmaati ah waxaan isku dayay waxyaalahaas inaan hooyooyinka la qaybsado caruuraha yararka haysta markay ka hargabaan insha Allah waa soo gudbinayaa wixii caafimaadkaas oo dhan ku saabsan oo intaadan takhtarka haddii dee wixii ay maaragtay yihiin wax oo kaalmaatigii aysan anficayn waa inaad takhtarka caruurta u geysaa waa khasab laakiin badanaa waxaa dhici karta inay dhaqaatiirtu ku dhahdo waxaas iyo waxaas isticmaal waxyaalo badan oo waxaa jira wadankan Jarmalka aad soo gadanaysid oo ama farmashiyaha oo apotika looga yaqaan halka kan ama dukaamada qaarkood oo la yiraahdo drogery market oo ay ka mid yihiin Rossmann iyo DM laga yaabo inay gobolada ku kala duwan yihiin magacyada laakiin waxaan u maleynayaa Jarmalka oo dhan inay Rossmann iyo DM ka furan yihiin qayb dhan oo waxay leeyihiin caafimaadka dukaamada kale xataa waa leeyihiin qayb caafimaadka oo caadiga loo aado yani maxaa la dhahaa Lebensmittelka loo aado sida Edeka oo kale ama Real dukaamada waaweyn xataa Aldiga wuxuu keenaa waqti walbaba oo maarkino afarta waqti dee waqti walba wixii loo baahan yahay buu keenaa hadda waqtigan winterka oo kale wuu keenaa dukaamo kale oo badan oo wax keenaana jira qof walbaba dee tii uu markaa asagu uu gaari karo ama uu ka helo uu ka soo iibsan karaa marka insha Allah waxaan idinkula qaybsanayaa waxyaalaha aniga cadaa kulli xaal aan guriga ii yaala mar walba ama aan soo gato aniga aan iska u soo gato oo markaa iga baajiyo inaan takhtar aado iyo waxyaalaha caruurta oo isticmaalo wiilkayga inkastoo nin weyn yahay laakiin haddana sidii ilmihii baa loola dhaqmaa yarka ahaa marka waxyaalo badan isaga mid baa uu ka yihiin caruuraha yaryar sidaa darteed insha Allah waxyaalo badan baa idinla qaybsan doonaa marka videoga sii daawada waana mahadsantihiin dhammaantiin walaalaha qaaliga waa idin soo dhaweynayaa anigana waxaan rajeynayaa sidoo kale markaa idin imaada inaad gacmo furan aan isku soo wada dhaweyno waxaan kaloo u mahadcelinayaa gabdhaha walaalaha ah ee youtuberska ah ee runtii na soo dhaweeyay channelka ama organizationka nala fahmay oo ugu horeyso abaayo Faadumahas abaayo aad baan kaaga mahadcelinayaa maama Soomaali abaayo adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa maama Fartuun abaayo aad baan kaaga mahadcelinayaa Umu Shayma abaayo aad baan kaaga mahadcelinayaa iyo walaashay kale ayadana oo youtuber yar ah sideedoo kale oo la yiraahdo Tunay Channel abaayo adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa dhammaan inta kale walaalaha ah ee nala fahanta channelkayaga iyo waxa yacni mawduuciisa ama hiigsigiisu yahay oo organization uu leeyahay channelka dabcan aan haddana magaciisii maadaama lagu wareeray xoogaa aan af Soomaali u qornay oo aan ishtiftunkii ka reebnay Abshir Xasan af Soomaali caadi buu ku qoran yahay meesha Xasan unbaa waxaan ka dhigay H ka dhigay meeshay xa'da ka ahayd af Soomaaliga ama X-ka marka insha Allah waxaan rajeynayaa inay walaalo badan markaa aysan hadda ku wareeri doonin marka dhammaan walaalaha dhan qalbi wanaagsan baan walaalayaal aad igu soo dhaweyseen waxaan rajeynayaa qalbiga wanaagsan in anigana la imaado waana mahadsantihiin 100% Octenicept waxa waaye disinfection ama disinfection
oo meesha maxaa la dhahaa dhaawac uu gaaro ama cunuga meeshii wax ka xigtaan aa uga shubaysid waana xanuun la-aan cunuga taasaana u fiican usoo gada. Kan waxaa waaye sun cream ama toothpaste oo fluoride la-aana. Badanaa waxaa la dhahaa fluorideka cunuga hadduu ama fluoride caruurta uma fiicnaa la dhahaa maadaama ay liqaayaan oo aysan tufeynin ilmuhu intuu yaryahay marka kanaa loo soo gadaa. Manuka honish ama manuka honey wuxuu ka yimaadaa New Zealand. waa malab qaali ah laakiin waa malab aad daawo fiican u leh. waa antibacterial. maxaa la dhahaa geed waxaa laga sameeyaa geedkaa kuma sawiran ah ubaxiisa waxaana la dhahaa manuka. qofkii awooda caruurtiisa ha usoo gato. aad buu malabkaani u fiican yahay. aniga wax badanaan ka dareemay inaa asaga keligiis video kasoo sameeya waa runtii waayo waa malab qaali ah runtii. falaastadaas ama sharootadaas waxay u fiican tahay muruq xanuunka sida dhabarka maxaa la dhahaa garbaha markay ku xanuunayaan runtii wax badan aan kuleyba ka dareemaa. farmashiyaasha lagu gadaa ama waxaa u malaynaa Drogery Marketka laftarkiisa waa lagu gadaa. waa raadin kartaan. saliidan aaday u fiican tahay. Faleeda la dhahaa maarkadeeda waxay la mid tahay iyada iyo waxa isku maarka ah maxaa la dhahaa sun pastadii ama maxaa la dhahaa toothpastegii baa isku mid ah. midda hadda hore waxay ahayd maxaa la dhahaa regeneration ama regenerate ma la dhahaa of English. midda kalena waxay ahayd maxaa la dhahaa in ii sheeg massaging oo aaday u fiican tahay. tan yar gabar carabaan ka gado maxaa la dhahaa Marookaan ah. saliid wajiga ah ay ahayd saliid aad u fiican waay maarkadeeda ma aqaan laakiin qofkii carabiga yaqaanaa fiirin kara. tan waxay ahayd maxaa la dhahaa saliid iyadana gabadhaasaan kasoo gaday iyadana korkoo dhan ah iyo timaha iyo meel walbaa la mariyaa waxaana waaye argan oil. aaday u fiican yihiin saliidaha aniga runtii aadan u jeclahay waan isticmaalaa badanaa waxyaalaha badankooda saliidaan u isticmaalaa waayo kareemku waxyaala badanaa ku jira laakiin saliiduhu waa ka fiican yihiin. Tetesept waa Orient xamaam baad yani xamaam waa taqaanaan waxaa lagu shubtaa baadka markaa qubaysanaysa ama baadka. Baldaryan waa maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa Berungs baad yani wax ku dejinaya oo ku qaboojinaya wayna fiicantaa iyadana. bahashaan Kalharia la dhahaa kareemye iyo waxay ahayd cusbo iswadata waxaan kasoo gaday South Africa maxaa la dhahaa magaaladan Johannesburg aan kasoo gatay laakiin waa dhamaatay hadda laakiin waa cusbo fiican. cusbadaana dukaan kale aan kasoo gaday asagana maxaa la dhahaa cusbooyinka aad bay u fiican tahay in baadka lagu shubto ama baadka oo ana kuleyba waxaan ka dareemay. shea butter waa maxaa la dhahaa Afrika asagana waxyaalahaas oo dhan gabdhaha Afrika jooga way raadin karaan. shea butter Afrika laga keenaa waa buur yani wax ku jira ma jiro waa wax natural ah aadna jirka iyo timaha ugu fiican. und haut baa ku qoran timo ilaa ay cirib meel walba marin kartaa waana wax aad u fiican wax ku jira ma jiro. tan waxaa waaye cusbo waaye waa maxaa la dhahaa dukaankii Rituals aan ka gaday adoo wax yar hadda ku jira kuwaana kuwa maalintii dhaweed kasoo gadaya waa tii sonkorta iyo tii kale oo maxaa la dhahaa kareemka ahaa. marka waxyaalahan badankooda cusbooyinka iyo waxyaalahaas oo dhan waxaa kasoo gadan kartaan dukaankan TK Maxx la leeyahay ama Drogery Marketka sida Rossmann iyo DM-na way gadaan. bahashaan waxaa kasoo gadan kartaan dukaamada barafuunada iyo gada maxaa la dhahaa waxyaalaha cosmetiga ah. waa maxaa la dhahaa peeling waa face peeling ama gesicht maxaa la dhahaa peeling waaye. inay Faransiis tahay u malaynaa maarkadeeda runtii aan kuleyba way anfacday mana qoyana. Yabaanisha mince oil waa abufaaskeeni oo kale waxyaalo badan oo caafimaad u yahay qoorta ugu xiri kartaa intaa mara yar ugu shubtid cunuga waa ugu maxaa la dhahaa huurin kartaa dharka ugu shubi kartaa aad bay u fiican tahay. Meditonsin waa goojo aad u fiican oo hargabka oo caruurta iyo dadka waaweyntan dadka waaweyn waaye. waa maxaa la dhahaa ginger iyo orange wuxuu u fiican yahay dhuunta waa markii dhuunta ay ku xaroonto halas bombo misaa la dhahaa. bahashana waa wund spray waa taqaanaan laakiin nanaca kasii muhiimsan dhuunta markay ku xanuunto. bahashan caruurta waa meditonsin waa taa idiin sheegayay caruurta waaye markaa soo gadanaysa tan caruurtaa rabaa hadaa caruur haysad. falaasta mar walba waa inaa haysataa sharooto guriga kuu taala. tana waa iska wund spraydii iyadana oo aa ku shubaysid meeshii cunuga iyadaaba ku tusaysa waa ujeedaan. ibuprofen waa inay mar walba guriga ku taalaa caruurta markay kaa hargabto takhaatiirta badanaa siibay ku leeyihiin ama xataa cunuga uu maxaa la dhahaa paracetamol asagana sidoo kale caruurta
in loo kala bedelaa fiican. ACC waa taqaanaan, waa maxaa la kaniini oo hargabka ah oo maxaa la xabka kaa fuujinaya. Sharootadan iyadana sidoo kale guriga sharootooyin caruur haday ku joogto inay sharootooyin ku yaala waa fiican tahay. Norofinta ayadana waa xanuunka, waxyaalaha xanuunka oo dhan caruurta waa loo kala bedelaa, hal nooc kaliya lama siiyo. Halkan dukaankan tagay waa u jeedaan qaybta caruurta maxaa la dhahaa eucalyptus oilkii, waa maxaa la dhahaa bombomaskii oo dhan ama maxaa la dhahaa nanacyadii caruurta, nanac kuleylka u naqaanay, nanac kuleylka caruurta si asaga intaas siin lahayd. wax kale waxaa helaysaa spray oo yacantii sanka lagu buufinayay iyo maxaa la dhahaa markii xabka uu ka gala caruurta maxaa la dhahaa kuwa kusoo dhaqaysay waxa dhan waxaa ka helaysaa Drogerie Marketka qaybtooda ayuu soo masuura waa u jeedaan qayb dhan bay ku leeyihiin. waxaan oo dhan waa maxaa la dhahaa homeopathic bay dhahaan, yacni waa wax oo daawada oo ma arkin oo laguma ordo antibioticska ah. waxaa la raadsadaa waxyaalahan oo ma arkin oo naturalka ah. marka kuwa waxaa jira oo magac dheer leh, waxaan ka aqaanayo kale maxaa la dhahaa midaan oo la dhaho Jarmalka Cholesterol bay dhahaan, waxyaalo badan bay leedahay. waxaa jirta maxaa la dhahaa TT Septasa jirta iyadana maxaa la dhahaa way kala duwan yihiin markadayaasha adiga kii ku anfaca. Spraygaas waxaa waa dhuunta iyo qumanka iyo u fiican yahay. marka insha Allah khayr baan isku ognahay. wixii su'aalo way soo weydiin kartaan.